muwaadin ma ku baraarugsan tahay in ka shaqaynta nadaafadu tahay ka hortagga xanuunada iyo nabaad guurka deegaanka ayna nadaafad xumadu sababto caafimaad darro weyn oo ku baahda bulshada dhexdeeda fadlan ka shaqee nadaafada iyo bilicda deegaanka aad ku nooshahay hooyo aabe walaal ganacsade iyo mas'uul fadlan bilow inaad ku dadaasho ka shaqaynta nadaafada halka aad degan tahay kuna beer dhir iyo ubaxyo sare u qaadaya bilicda deegaankaaga ilaalinta caafimaadkaaga iyo fayadhowrkaaga shakhsiga ah waa badbaadada bulshada inteeda kale waayo dhammaanteen waan isku saameyn karnaa xaaladda qof gaar ah ku sugan yahay muwaadin ogsoonow dalkan inaad wax ku leedahay waajibna ka saaran yahay ilaalinta nadaafadda iyo soo celinta deegaan bilic leh si ay bulshadeenu ugu noolaadaan caafimaad buuxa fadlan qaado kaalintaada muwaadin nadaafaddu waa iimaanka barkiis waana cibaado iyo danguud sidaas darteed ka shaqaynta nadaafadda ha ka sugin cid gaar ah ee adigu noqo qofka ugu horeeya ee dadka ku baraarujiya kana shaqeeya ka hortagidda nadaafad darrada si loo helo dad bad qaba iyo deegaan bilicsan kasta ee Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay ka qayb qaadashada ilaalinta badqabka deegaanka hadaba muwaadin gee qashinka meesha loogu talagalay muwaadin ka taxadar biyaha gurigaaga ka soo baxaya ee wasaqeynaya nadaafadda iyo bilicda deegaanka ixtiraan oo ilaali dariskaaga si aad deegaan nadiif ah ugu noolaataan muwaadin aad bay u xuntahay in qashinka aad ka soo saarto gurigaaga ama goobtaada ganacsi aad soo dhigtay jidka bulshadu marayso fadlan maaree qashinka oo ha ku shubin jidka diinteena anshaxa guud iyo shuruucda dalku ma dhiirigelinayaan in lagu xadgudbo xuquuqda wadada muwaadin uga taxadar nadaafadda wadada si lamida sida uga taxadarto nadaafadda gurigaaga gaarka ah fadlan muwaadin la shaqee oo dhiirigeli dadka u xil saaran ilaalinta iyo ka shaqaynta nadaafadda deegaanka aad ku nooshahay caasimaddu waa muraayadda dal walba laga arko quruxdiisa adduunkuna uu marqaati ka yahay muwaadin intuu qashin ka buuxo caasimadeenna gaari mayna saageen fadlan ka shaqee soo celinta iftiinkii iyo bilicdii ay muqdisho lahaan jirtay bersamaadkii